Firdawsi Cabdulaahi Cumar waa gabar Soomaaliyeed oo 22 sano jir ah oo tan iyo sanadkii 2010 ku howlaneed inay hesho waalidiinteeda. Istuudiyaha idaacadda Star FM ee magaalada Nairobi ayay maanta inagu soo booqatay. waxaana wareystay wariyaheena Mawlid Maxamed Shuuriye. Gormeed ogaatay dadka aad la nooshahay inay waalidiintaada ahayn. Assalaamu alaykum Firdawsi Cabdulaahi Cumar. I'm looking for my both parents. Ayo boy raadinaya Soomaali si fiican ani ma garanay. I discovered when I was informed to high school 2010. Waxay tiri anoo fasalka labaad ee dugsiga sare ku jiro sanadii 2010 ayaan ogaaday dadka aan la noolahay inay waalidiintayda aysan ahayn. Firdawsi waxa la isweydiin karaa 2010 ilaa ay hadda waalidiintaada ay raadinaysay dadka iyaga ay raadinaysay hooyo iyo aabba magacyadooda ma taqaan. Hooyo waa Maymuna Abdullahi Ibrahim. Isaaq abo waa Abdullahi Cumar ee habar gidir sacad. Intii aad raadinaysay ilaa ay hadda intee lagu sheegay oo lagu yiri markii ugu dambeysay waa lagu arkay Nairobi. waxaan filayaa adigoo yar inay kuugu dambeysay. The time they left me 3 years and just when I was informed to I discovered they're not my parents. When they called me go and bring your parents, he said she's not my daughter. So I started looking for my parents. Then I started doing some investigation, looking for my parents, looking for one place to another, and then everybody they're telling me a different question. Then I start go to radio community in Wajir. Everywhere everybody is saying give it this way. They're just looking, they just start DNA that I'm feeling bad. This someone is not my father. This DNA I get shocked. Firdawsi waxay leedahay dad badan ayaa sheegtay inay dhaleen oo dhacanka laga qaaday ilaa hadda wax natiijahan iyo ma soo bixin. Firdawsi dadkan iyaga ah ee waalidiintaada la dhashay abtiyaasha masawirayaasha mas'eedayaasha adeeryaasha ma taqaan. Maya I don't know. waxaan filayaa hooyo iyo aabba inay hadda ay ku maqlayaan iyagana ay raadinayaan gabadhooda iyo xilliga ugu dambeysay mise iyaga labaduba mid kamid ah maxaad u sheegi lahayd? Okay, I need your help as a Muslim. I'm looking for my parents and I'm just alone in this world. I'm praying to get my parents. waxay tiri waxaan ahay qof muslim ah oo waalidiintiisa raadinayo awinaadiin ayaan u baahanahay dunidan kaliya ayaan ku ahay waxaan doonayaa in aan waalidiintayda helo. waxay sheegtay in dadaal dheer oo ay u gashay hasaatee ilaa iyo hadda ma aysan helin murugada haysata awgeed ayaa waxay ku sigatay inay nafteeda ka taqalusto. Firdawsi intii la wareysanayay waxa wajigeeda ka muuqday murugo fara badan oo fariin u diraysa cid kasta oo damqanaysa. Fariinteeda ayaa ah icaawiya si aan waalidiinteeda u helo waxayna ka dhawaajisay inaysan ka daali doonin raadinta waalidiinteeda. cid kasta oo ina dhageysanaysa ama fariintani daawanaysa waxaa laga doonayaa inay kaalin ka qaadato sidii Firdawsi looga dulqaadi lahaa dhibaatada haysata. walaal faafi muuqaalkan si Firdawsi waalidiinteeda ay u hesho adigoo mahadsan.